walaalayaal waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mawduuca aan isugu nimid intii soo horumartay ee waqti badan sugaysay intii soo daahday aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. si loo kala dambeeyeyna waxaa la qiray galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna malaha. shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha 4 oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo. labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka. ergey walbaa inuu baaj xirto, liiskii iyo magacyadii aan isku aadisano ay iridda noo yaallaan, dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan u soo galaan, ciddii aan shuqul ku lahaynina la kontarooli karo ay bannaanka joogaan. diiwaangelintaas waxaa raaci doona baraarujin iyo barnaamijkii la geli lahaa maalinka shirka la furo wixii ka bilowda. howlahaasaan qabsanaynaa labada maalmood oo nagu soo aadan ilaahay idankii guddigaa nagu daadihin doona. waxaan rabaa inaan idhaahdo aan gacan ku siino guddiga iyo xoghaynta guddiga iyo wasaaradda oo arrimahaas noo daadihin doona.